in aad noqoto qofkay dhiiranaantahay ka imaanayso runtii waa wax fiican. waxaa la yidhi haddaadan maalinku adigu maamulin ayada ayaa ku maamulanaysa oo iska kaaga kor soconaysa, maxaa yeelay wakhtigu kuma sugayo. laakiin haddii aad adigu wakhtigaagu ka faa'iidaysato xaqiiqdii waad maamushay maalinkaas. maxaad sugaysaa? yaa sugaysaa? hadda bilow oo dhaqaaq. waxa adduunkan uu ku socdo waa wakhtiga. haddiiba uusan ku sugayn wakhtigaasi oo aad adiguna meelahaga aad waxba ku haynin, waxay ka dhigan tahay inaad adduunka aad ka dhacsan tahay. weligaaga ma aragtay wakhtiga oo lagu dhahayo maanta waa uu daalan yahay oo sidaa ayuu tartiib u socdaa sidii didiinka oo kale. dabcan waad noqon kartaa qof caafimaadkiisa sareeyo, waa haddii aad ku dadaasho. waad noqon kartaa qof faraxsan, waa haddii aad fahanto micnaha loo noolyahay. hal maalin ayaa noloshaada beddeli kartaa ama waxbaa sabab lagaaga dhigayaa. marka waa in aad alle u mahadcelisaa markaad aragto qof meel uun adiga kaaga hooseeya. awoodahaaga adigay kugu jiraan ee la soo bax. hadda qaado sahaydaada oo cagta saar waddada guusha.